si wax looga qabto xaaladaha dadkii dhibaatadu gaartay ee guryahooda looga gooyay qaar ka mid ah tuulooyinka degmada Wanlaweyn ayaa waxaa qasab noqotay in laga warqabo xaaladahooda guud iyo mid gaar ahaaneed halka dhibta ugu badan soo gaartay waa tuulada Siigoole Galooley iyo qaar kaloo badan tuulada Siigoole in ka badan 75 guri ayaa haween qudha lagu gooyay qoysas badanna ay waayeen meel ay ku hoydaan waxaa adkaatay in dhibtani ka kabsadaan sidaas darteed indhayntan uu kusimaa gudoomiyaha degmada Wanlaweyn ka sameeyay qaar ka mid ah tuulooyinkii dhibta xooggan soo gaartay ayaa dadka degan tuulooyinkii ku soo bandhigeen dhibaatada haysata si ay wax ugu qabtaan dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka waxay dowladda ka codsaday inay gacan ku siiso dib u dhiska guryahooda rabbi oo dhawaatay waa dhiidi ina ilaahay ni dhiidi Soomaali iskidi oo dhan 75 guri amal rafaatay intii ilaahay ni وبنوالي سيدي إلهي ونوالي أدي قرقارتي ألسألي نكسمي لهايتي دواتها ثانيال قرقار نكسو بي لهاي لبكاس بيها جري ساسا جرت هذا إيشان قول سيقولي sidoo kale meelaha dhibta ugu badan soo gaartay ayaa waxa kamid ah tuulada Galooley oo guryo badan lagu gubay dadka degan tuuladaasi ayaa waxay sheegeen inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah iyo in laga caawiyo dib u dhiska guryahooda sidoo kale ay u baahan yihiin silsiyo maadaama kaneecadu zaid tahay xilli roobna lagu jiro tuulada Galooley aan joognaa bariga oo maarta la gubay daraad harmadadaan ka rabnaa oo la dhiso hadoo Ilaahay yiraahdo dhibkaas meesha qabtay dabkaas oo ku dhacay hadaan dhex joognaa ما ينبغينا معنا أن إبكار سندارة إن نكرتوا في هاينة أن بلد مكان مكان بنانك كوين وغلاقان الدنيا سلبان بني ما يفضل هاينة هايت معنا دك إن نسيو ما هايكون خواب كان هو سلوك أشر ولا ينبغينا ما ينبغينا معنا علابتي كبر برت والمعنا كل ما يفضل ولا كدسنا معنا براكة الونتي هذا من سجودنا ما يفضل وجين قد أكو خسارة الهاينة هي ينبغينا إما ينبغينا تسير لا عم بعد ودن كي بدل معنا المايد خواب كأرم وايد وكان تسير لا عنان ينبغينا تكتن والنكشان لا ينبغينا بربرك أنت كلي أربعة هايتان ونهاد سرورنا طول أنا مردكن Galooley ليرا الحمد لله وحي ماته يو وحي دقن يدقن الدنيا وحي دقن الدنيا نقول قناي علاب متر جور متر وح مات الحمد لله أوه لا استماله وايه بلدكي أنا أقحنا بلدكي وأنا هاي واي واسوار نقول باسكي أو نقولياش نلقوي أنا كسر نقول الحمد لله وحنا باهنا هاي ده سمفلها أنا قرقر أو سيدك دقة ينوسو قران ugu dambeyntiina kusimaha gudoomiyaha degmada Wanlaweyn mudane Maxamed Cabdilaahi Koosta ayaa ka codsaday dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka inay si dhaqsi ugu jawaabaan ayna mas'uuliyad ka saaran tahay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadani wuxuu kale gudoomiyuhu baaqu diray shacabka wax haysta ay ku dhaqan degmada Wanlaweyn inay iyaguna kaalin wax ka qaataan maanta waxaan soo ilaalinay tuulooyinkii dhibaatada ku dhacay sida tuulada Siigoole Galooley Eerika hadda waxaan dhex taaganahay tuulada Siigoole ee laga gubay ilaa 65 guri oo ay qayb ka ahayd mashaqadii oo bilowgii bishii Abriil 2020 ka dhacday degmada Wanlaweyn dadka kulay wax naf dhintay hadda uma jeedna laakiin haraadiga ayaa sii muuqda oo guriyihii la gubay hantidii la gubay oo sii muuqata marka alxamdulillah dhammaan hay'adaha caalamka oo dowladda Koonfur Galbeed dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in tuulooyinka dhibaatada ay ku dhacday sida ugu dhaqsiba in gacan lala soo gaaro tuulada Siigoole waxa ku dhacay aan waay guriyaha laga gubay badarkii waa laga gubay wax alla wixii sanadkan tacbadeen oo sisin ahay digir ahay waa laga gubay sida daraadeed hay'adaha caalamiga waxaan ka codsanaynaa inay si gacan bani aadamnimo lala soo gaaro oo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo waxaan leenahay dadkan idinka ayaa ka mas'uul ah wixii dhacay waa dhaceen sida ugu dhaqsiyaha badan inaad noo amartaan hay'adaha gargaarka iyo cid kasta ee wax haysata dadka ku dhaqan degmada Wanlaweyn waxaan leenahay kuwiinaan wax haysta isu kaalmeeya Ilaahay waa idin kaalmeeyna isu kaalmeeya annagana insha Allah waan dhex taagnaan doonaa gacantan ku sii haynaynaa mana ka dhaxbaxayna wixii khasaare gaaran insha Allah gacanaa ka geysanaan jecelnahay marka maantana waxaan soo markoowaad mar labaad soo salaanay walaalaheen heer Siigoole waxaa ceeb nala naqatay inaan ka maqnaano Cabdi Qani Maxamed Xasan Wanlaweyn